saa'ilkani wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed allaha ku xifdiye gabadh aan isjecelnahay ayaa igu xirtay inuu noqdo meherkeeda inaanan naa kale la guursan arrinkaas maxay shareecada islaamka kaga qabtaa arrinta ku saabsan inay haweenta la guursanayo ay shardi ka dhigato inaan lala guursanin culimadu waa isku khilaafsan yihiin shardigaas hadduu ninku ogolaado sidaana ku guursado shardigaasi ma laazimaya mise ma laazimayo qaarkood waxay qabaan shardigaasi inuu laazimayo oo waa madhabka imaam axmed iyo kayrkii culimadu badan baa qaba inuu laazimayo shardigaas axaadiisna waa u daliishanayaan yani taabiciinta saxaabada qaar ka mida iyo taabiciinta qaar ka mida iyaa qaba waana madhabka axmed iyo awsaaci iyo isxaaq ibnu rahwiya inuu laazimayo waxay daliishanayaan xadiidkii saxiixaynka ku yimi bukhaari iyo muslim ee nebigu uri sal alla alay wasalam ina axaqa ashuruuطi an tuufuu biha ma staxlaltum bihi اlfuruuj shardi midka ugu mudane ugu xaqle inaad oofisaan ood fulisaan waa shardiga aada xubinka taranka ee dumarka ku bannaysataan shardiga ay kugu oggolaato oo xubinkeeda inaad intifaacsato aad ku heshay shardigaasaa ugu mudan inaad fuliso shuruudda ka ugu mudan waa xadiidka saxiixaynku ku yaallaa waxaa kaloo deliishanayaan xadiidkii isagana abu daawuud iyo xaakim soo saareen min xadiidi abi hurayra ee nebigu uhi sal lla alay wasalam almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu shuruudooda iyo waxay iyagu ku heshiiyaan bay ku dul sugan yihiin yacni ruuxu wuxuu islaazimiyo oo isagu isu saaro waa ku laazimaysaa cumar hadalkiisiina waa kii ahaa maqaaticu alxuquuqi cinda shuruud xuquuqdu meeshay ku go'do waa shuruudda agteeda shardi haddaad gasho oo dad shardi la gasho heshiis la gasho xaqaasi waa laazimaya nusuustaasay deliishanayaan a'immadaasi oo waxay qabaan waa laazimayaa waa kugu laazimayaa haddii shardigaasi laazimana waxaa diidan a'immada qaar ka mid a shaafici iyo waxay leeyihiin ma laazimayo madhabkanaa dambe horaad moodaa inuu xoog badan yahayo adiladaas deliishanaya wax ka hor imaanaya oo maanico toosana ma jiro sidaas daraaddeed haddaad sidaa ku guursato waa inaad ilaaliso ilaan adaa qoorta la galay soo maa ya waan jeclahay iyo marqaankaa ku geliyey hadhowna waxaad dhihi doontaa un sheekh xuseen yeela marka horeba inaadan gelin baa habboon laakiin haddaad gasho waa inaad ilaaliso ayib haddaad ilaalin weydo maxaa dhacaya waxaa dhacaya haddaad ilaalin weydo oo intaad shardigaa gasho aad ka baxdo iyaduna xaq bay u leedahay inay ka baxdo say uga bixi way isfasaqi kartaa macnaheedu maaha haddaan shardigii ka baxon la guursato inay markaba furmayso maaha tilqaa'iyan automatikiin inay u furmayso maaha laakiin waxa weeye yani lahaa xaqu lfaskhi way isfasaqi kartaa wayna sabri kartaayo hadday yani kuu tanaasushana khayr wa barak laakiin hadday kuu kenkeento inay isfasaqday xaqu leedahay waxaa taa ka gedisan in aad tidhaahdo haddii aan kula guursado waad iga furan tahay taa way ka gedisantahay haddaad shardigaa ku guursato markaad guursato kadib haddaad shardigaa gasho oo aad la guursato way furmaysaa fasaq uma baahna iyo qaadi markaa haddaan kula guursado waad furantahay haddaad dhahdo haddiiba aad la guursatay markaa waa furmaysaa laakiin hadday tahay kula guursan maayo iyo shardi uuna hadday tahay markaa toos uma furmaysee fasaq bay leedahay way isfasaqi kartaa macnaha qadaa iyo maxkamad baa markaa fasaqaya hadday doontana way kuu sabri kartaayoo caqdigii markaa wuu soconaya wallahu